Waxaa maanta socda soo qaadista meydka marxuumad Khadija Maxamed Diiriye, guddigii oo magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku howlan sidii meydka wasiiradda lagu gaarsiin lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Sidoo kaleete, qoyska wasiirad Khadija Maxamed Diiriye ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ka dalbanayaan in meydka wasiiradda lagu soo wareejiyo si ay baaris ugu sameeyaan, waxayna qoysku qabaan shaki weyn oo ku aadan in la dhibaateeyay wasiirad Khadija Maxamed Diiriye, sidoo kaleetana xaaladeeda caafimaad ay fiicneed xilligii ay ku sugneed isbitaalka weyn ee magaalada Jabuuti, gaar ahaan isbitaalka military ee lagu dabiibayay xaaladda wasiirad Khadija Maxamed Diiriye. Xogo xasaasiya oo ku aadan geerida wasiirad Khadija Maxamed Diiriye iyo qoyskeedu hadallada ay jeediyeen ayaan daawadan kula wadaagayaa qaybaha dambe ee muuqaalka. Marka hore, muuqaalka sheergareeya oo meel fog gaarsiiya. Haddii ay tahay markii kugu horeysay oo soo booqatay channelka Haldoor Media-na, waxaan ka codsanaynaa in aad subscribe tiraadid, gambaleelkana furatid si mar walba aad u heshid xogihii ugu dambeeyay ee ka dhaca gobolada dalka Soomaaliya. Aan ku bilaabe, waxaa la wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya la soo gaarsiiyo meydka marxuumad Khadija Maxamed Diiriye oo shalay ku geeriyootay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti, halkaasina ay u tagtay ka qaybgalka shirka sanadlaha Heritage. Hase ahaatee, wasiirad Khadija waxaa kusoo booday xanuun sida ay xaqiijiyeen ilo madax bannaan, waxaana la geeyey isbitaalka weyn ee ciidanka militariga dalka Jabuuti ay ku leeyihiin gudaha caasimadda dalka Jabuuti. Wasiirad Khadija ayaa isbitaalka military waxa ay ku martay qalliin ku aadan dhanka qabsinka, maadaama xanuunka ugu badan ay halkaasi ka dareemaysay, waxayna dhaqaatiirtii qalliinka fuliyay ay sheegeen inay ku guuleysteen qalliinkaasi. Sidoo kaleete, isbitaalka waxaa ku booqday wasiirad Khadija civil society-ga ka qaybgalayay shirka Heritage ee sanadlaha ah oo ay ku tala gashay inay ka qayb gasho, hase ahaatee xanuunka soo wajaha awgeed ay uga baaqatay. civil society-ga ku booqday isbitaalka waxay inoo xaqiijiyeen in wasiirad Khadija xaaladeeda caafimaad ay ahayd mid aada u soo hagaagaysay, ayna u sheekeynaysay. Sidoo kaleetana maalintii shalayta ahayd ay dabaaldega ciidanka militariga hambalyo u soo dirtay, xaaladeeduna ay u muuqatay mid aada u fiican. Markii ay ka soo tageen isbitaalka ayaa mar qura waxaa soo wacay kalkaaliyaashii isbitaalka, waxayna u sheegeen in xaaladda wasiirad Khadija ay tahay mid halis ah, ayna ka soo gaaraan civil society-gii iyo sidoo kaleete mas-uuliyiinta dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre. Waxay gaareen isbitaalkii isla mar ahaantii markay arkeen xaaladda wasiirad Khadija oo ah mid halis ah, waxay si degdeg ah u dalbeen diyaarad ambalaas ah oo laguna qaado dalka Turkiga, halkaasina lagu qabto xaalad caafimaad oo gurmad ah. wasiirad Khadija intii lagu guda jiray u diyaargarowga qaadisteeda ayay halkaasi ku ruux baxday, waxa ayna sidoo kaleete bulshada qaybaheeda kala duwanaa, gaar ahaan civil society-ga, ay noo xaqiijiyeen in xaaladda wasiirad Khadija ay shaki weyn ka qabeen, maadaama markii horeta xaaladeedu ay ahayd mid aada u degan soona hagaagaysay, laakiinse ay ka shakisan yihiin daawooyin la siiyey wasiirad Khadija Maxamed Diiriye. Rabbi naxariistii janna Allaha ka waraabiye. Hadalka ka soo yeeray civil society-ga ayaa dhaliyay in qaraabada iyo ehelada wasiirad Khadija Maxamed Diiriye ay shaki weyn ka qabaan geerida degdega ah ee ku timid wasiiradda, sidoo kaleetana baaris lagu sameeyo dhakhtarkii iyo sidoo kaleete kalkaaliyaashii daawooyinka siinayay, maadaama wasiiradda ay ahayd wasiirad aad ay u jeclaayeen shacabka Soomaaliyeed. waxa ay hadda qaraabada iyo ehelkuba ay dalbanayaan in baaris gaar ah lagu sameeyo meydka wasiirad Khadija Maxamed Diiriye si loo ogaado daawooyinka la siiyey waxa ay yihiin iyo saameynta ay ku yeelatay jirkeeda. wasiirad Khadija ayaa hadda waxaa la wadaa in loo soo qaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, halkaasina loogu sameynayo aas qaran, maadaama Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda oo magacaabay guddi 11 xubnood ah oo aas qaran u sameeya wasiirad Khadija Maxamed Diiriye. Hase ahaatee, aaska qaran ka hor waxa ay eheladii qaraabadii ay ka soo jeeday wasiiraddu ay dalbadeen in lagu soo wareejiyo, ayna u diyaariyeen dhaqaatiir baaris ku sameysa dawooyinka jirkeeda ku jira.
wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ahayd wasiirad aad ay u jeclaayeen shacabka Soomaaliyeed, sidoo kaleetana mar walba kaabi jirtay qofka danta yar ee ummadda Soomaaliyeed ama liita dhanka waxbarashada, ayna mar walba ahayd qof garab istaaga caruurta agoonta ah ayna ka bixi jirtay waxbarashada. wasiirad Khadiijo dadka yaqaana waxa ay ku tilmaameen inay ahayd qof dabeecad wanaagsan, sidoo kaleete bashaash ah, jecel dalkeeda iyo dadkeeda, mar walbana ku guubaabin jirtay mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeedba in dowlad dhiska Soomaaliya laga qayb qaato, loona baahan yahay in ubadka soo koraya ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah. hadalladaasi iyo hadallo lamid ah ayaa laga soo wariyey wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye, dabeecadaheedana lagu sheegay kuwa aad u wanaagsan. hase ahaatee Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku oofsaday gudaha dalka Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti, waxaana maanta la wadaa in la soo gaarsiiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo loogu diyaar garoobayo in halkaasi loogu sameeyo aas qaran oo ku aadan maamuuskii iyo sidoo kaleete jacaylkii loo qabay wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye. wasiiradda ayaa qoyskeedu ilaa iyo hadda hadalka ka soo baxay waxa uu yahay mid gebi ahaanba ruuxay baraha bulshada Soomaaliyeed, halkaasina ay ku dalbadeen in baaris lagu sameeyo meydka wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye. wasiiradda markii ay ka ambabaxaysay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxay jeedisay hadallo u ekaa dardaaran, maadaama ay tiri waxaan galayaa safar maalmo badan ama sanado badan oon ka qayb qaatay munaasabado, maanta ma joogo, waan ka maqanahay, waxaana aadi doonaa safar shaqo oo ku aadan in aan halkaasi uga qayb galo shirar. hase ahaatee ma aysan ahaanin ee waxay noqotay safarkii ugu dambeeyay ay gasho halkaasina ay ku geeriyooto. wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye ayaa dadka yaqaanaa waxa ay ku tilmaamayaan inay ahayd wasiiraddu qof weji furfuran, farxad badan, marka aad u tagto waxa ay kala hadli jirtay qof walba oo Soomaaliyeed, hadduu mas-uul yahay, hadduu shacab yahay, si mas-uuliyadeed ayay u maamuusi jirtay. hase ahaatee wasiiradda waxa ay hadda ku sugneed xaalad caafimaad, maadaama dadka qaar ay sheegayaan in wasiirad Khadiijo ay xanuun wajahaysay, hase ahaatee xanuunkaasi uusan ahayn mid daran. wasiiradda ayaa waxaa la filayay inay ka qayb gasho shirka sanadlaha Heritage ee ka dhaca dalka Jabuuti, waxa ayna isla markiiba diyaaradda markii ay raacday ay dareentay xanuun daran oo ku aadan dhanka qabsinka, waxayna taasi keentay in isbitaalka militariga dalka Jabuuti la geeyo wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye, halkaasina ay ku gasho qaliin ku aadan dhanka qabsinka ah. qaliinkana waa lagu guuleystay, hase ahaatee